Tani waa munaasabadda furitaanka masaajidka ugu weyn qaaradda Yurub oo maanta laga furay caasimadda waddanka Ruushka ee magaalada Moscow. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen madax tiro badan ha ugu horeeya madaxweynaha martida loo yahay ee waddanka Ruushka, Mr. Vladimir Putin. Waxaa xafladan sidoo kale ka soo qayb galay madax tiro badan oo ka socota caalamka Islaamka sida madaxweynaha dalka Turkiga, Mr. Recep Tayyip Erdogan, iyo madaxweynaha dalka Falastiin Mahmoud Abbas, diblomaasiyiin iyo madax kale oo tiro badan oo ka socda caalamka Islaamka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Masaajidkan oo noqon doona ka ugu weyn qaaradda Yurub waxaa muslimiintu dhulka masaajidka laga dhisay iibsadeen sanadii 1902 waxaana masaajidkii ugu horeeyay laga dhisay goobtaas 1904 boqol sano guuradii kasoo ku beegnayd 2004 ayaa la isku afkartay in mid cusub laga dhiso kay taagnaana la burburiyo. Masaajidkaas oo noqon doona ka ugu weyn Yurub sidoo kalena ka casrisan kuwii hore uga dhisnaan jiray. wuxuu masaajidkii hore qaadi jiray 500 halka kan masaajidkan cusub loogu talagalay inuu qaado ilaa 10,000 oo qof oo ruux. Wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan 19,000 oo mitir oo isku wareega, waxaanu ka kooban yahay 6 dabaq. waxaa dhismihiisa isu soo sharaxay shirkado tiro badan oo laga kala leeyahay Turkiya, Uzbekistan, Morocco, Tataristan iyo wadamo kale oo tiro badan. waxaa aakhirtaankii ku guuleystay oo dhistay shirkad laga leeyahay Tataristan. waxaa masaajidkan ku baxday lacag dhan 170 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah oo 100 milyan oo ka mid ah ku tabarucay hal qof oo qori. muslimiinta Ruushka ayaa lagu qiyaasaa ilaa 20 milyan, waxaana caasimadda Ruushka oo ku dhadhagan 2 milyan oo muslima, waxaanay noqotay caasimadda ugu muslimiinta badan qaaradda Yurub. inkasta oo dagaal xooggan lagula jiro Islaamka, haddana waa diinta ugu faafitaanka badan leh Islaamku dunidan aynu maanta ku noolnahay.